dood adag iyo ismarin waa iyo qaylo baa ka dhalatay waraysigii xasan bariis habar gidir baa ka falcelisay ariyaa janankeeni saa uma dhiman ariyaa xaya ka dhacday marka professor ingiriis iyo wariye rugcadaaya xasan bariis markuu xaalku yahay garta haddaan galo xasan wuxuu ka hadlayaa waxaan u soo taagnaa waxaan arkayay waxaan shaahid u ahaa waxaan dhex taagnaa waxa buu ka hadlayaa ingiriisna wuxuu ka hadlayaa waxaa la igu yiri waxaan maqaalo ku maqlay heblaayaan joornaalkeeda akhriyay wargeys hebelyadaan akhriyay magbacadda ingiriis ku taalaan tagi wardi labadaan laba garan karo war habar gidir say wax idinka yihiin idinka intaas caddaysaan ninkaasi wuxuu u soo taagnaa buu ka hadla janankina wuxuu ku dhintay idinku sheega cidda disha sheega maraykana xa ka dhacay shisheeye maraykan maba joogin waddanka cabdiqaybdiid aad dilay cabdiqaybdi waa nooli ma dilin buu taagan yahay muuse ag taagnaa idinka salli calaa nebi xasan bariise wuxuu taagan yahay caydiid waa la taagnaa markii xabaddu ku dhacaysay firir baa ku dhacay xabad halkaa laga soo riday jiha hebel ka soo dhacday xag hadda ka hor baa waxa dhacday professor ingiriisna xilligaas aqliba ma lahayn ciyaal buu ahaa ninkaana waa 30 jir buu ahaa xilligaas intiraan ku qiyaasay hadda ka hor baa waxa dhacday ninka la yiraahdo ii sheeg ninka la yiraahdo dood baa hadda ka hor gab media waxaan isku marinay aniga iyo xasan daahir aweys baa hadal isku marinay inuu ahaa waagaas nin diyaar ku rooyahay markuu altixaadkii ahaa ma jeerteen ku soo duulay buuga cabdullaahi yuusufan ka akhriyay baa ninka la yiraahdo xasan daahir aweys waa soo wacay anoo liya maanta wuxuu sidaa maaha cabdullaahina waa iga khaldan yahay been buu iga sheegay waxaan hadda ku khaldan yahay been cabdullaahi keligii ma ahayn wuxuu meesha ku qoray saraakiishii asagoo inay taar dhageysteen taarka ay dhageysteen oo ku sheegay adiga iyo caydiid oo wada hadlaya taarkaan ay tirsadeen wuxuu yiri waa naqdiyaya waxaan rabaa dood inay qabatid igala dood bi anu kaalama doodi karaan ku xilliga wiil yar baan ahaa baan iri qoriqaadba ma ahayn kaalama doodi goob joogna ma ahayn waxaad ka haysan kuma qabsan karo oday iga weyn oo aabahay kala inaan ku xurmeeyaan xaq u leeyahay wuxuu yiri waa yahay waa inaan beeniyaan raba haddaad beeninaysid waxa ay goob joogayaashii saraakiishii rag kula dirirayay waan ku soo fariisinayaa meesha ii sheeg biyo isoo fariisinaysa oo dood ila galay waxaan iri general Siciideere sareeye guud Siciideere iyo ama daahir mira jibriil baan ku soo fariisinaya inta markaa iri buu yiri may lama doodayeen nimanka marka ma kula doodaan kula anoo meesha joogma kula dood taas xurmad darray noqonaysaa ma inaan ku dhaho been loo baat waa la igu yiri inaa been sheegaysaa la igu yiri dood waa helaysaa ma ku ninki ma garanaysaa marka tiyo kala way hadda waxa wada doodaya ingiriis oo waa la igu yiri iyo xasan bariis oo waa taagna garto Allah taqaan ama mursada hadan abgaalaha ama hawiyaa u dirdo ka aade abgaalo habar gidiray idinku jankiin cid dishay urub bixiya meel ku soo hebel baadayda abgaal waxay leeyihiin gaar yar baa luuq u gashayo mishin buu ahaa anaga dilno suuq bacaad xabad ku dhufatay ninka mursada wuxuu sheegay xabateedii sabana soo dhacday firirkeed inuu kirgisha ka galay idinku waxa leedahay maraykan baa dilay maraykan waddanka ma joogin mar waxa leedihiin ismaan caata dilay saacada mar waxa leedihiin ninka la yiraahdo cabdiqaybdi dilay idinku urub bixiya dadkan ka daayay jaayfada yaa salla ala nabi ninku waa dhiman karaa ninku ha dhintay jananku idinku waxa la qalaadeen janankiini baa firir dilay iyo janankiini waa gabar imu soo gashay baa maskaxdiina galala waa caadi qofka xabad quraan shaaba dili kada malagu cidna ma yaqaan meel kaas liqa idinka geerida liqa jananku waa geeriyooday ilaahay ha u naxariisto raxmadii Allah siiyo wuxuu ku geeriyooday sababta idinku sheega ama dadka sheegaya u daayay ama dadka sheegaya goobjoog ah u daayay ku qabsanin ama idinku sheega odagiina wuxuu ku dhintay in masku qaniino in qodax ku muddo waa isku mid qadar buu fulay saacad isu dhimanaya liqa saacadii saacada jananka marka in ama qodax muddo ama firra ku dhacay laakiin waxa hartaan jananka hadduu maanta xasan bariis oo lahaa gantaal baa ku dhacay ay soo riday maraykan aqoonsi hayde rug cadaaway wax badan buu og yahay oran lahayd waa oge waxa hartaan gantaal maraykan soo riday sidii kii cayro oo kala baa jaran ku dhacay in la yiraahdo hadda kuma dhicin walaal kuma dhicin jaran qodax waa mudug kala masna waa qaniini kara man gooya shirc baa qaniini kara u dhiman kara dad badan qalla u dhinta inkastoo aanay karin marka ilaahay jananka uu naxariisto
geeridiisa la iskuma haysto inuu dhintayna la iskuma haysto rag inay ishayeenna la iskuma haysto dagaalna ku dhintay la iskuma haysto laakiin waxa isku haystaas qaabkee u dhintay ma assassination ku dhintay ma wuxuu ku dhintay bahalkii hadda wiilkiisuna waa wiilka waa Xuseen Caydiid waa saaxiibkay ama in adeerkay Cumar Cabdirashiid oo kale nin baa dhalay laba xiniyo kaasoo wax uu sheegi kara ma Cumar Cabdirashiid sheegi kara wanikii aabahaas tabtii oo kale san sheegaya aabahay waxa la yiri Mareykanka qori isneebar soo dhiibi Mareykanka taagna Cabdiqaydid baa ma toogtay uu leeyahay ilaahay baa nin sida mas abur buu dhalaa yeah aad baa idin salaamaya gartu waa xiran tahay Xasan Bariisana lagama daba dhufan karo waa goob jooge waa ku boorre wuxuu taagay ana arkay ana uriyay ana u soo taagnaa ana la joogay bu taagay ana arkay ana hebel u tago waraysu taagay ingiriisna joornaan akhri heblaayo Suudiya igu tiri heblaayo kala waxay igu tiri habartii shoota dhashaa waxay igu tiri waxa miyaan qornaa marka war garta Allah taqaan gartan anigu bartadan ku dhuftaa waa idin salaamaya ciao